waxaan u qalab qaadanay oo aan ku sii jeednaa wiil ka mid ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba wiilkan waxa uu qabtaa mid ka mid ah xirfadaha ay nolol maalmeedkooda ka raadiyaan dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed qaarkoodna saf loogu jiro haddaba waa maxay xirfadaasi sidees ugu suura gashay su'aalahaas iyo kuwa kale inta aan idinkaga hor dhicin ina keena isku daygu waa awoodda koobaad ee buddhiga u ah sameynta ficil ama farsamo dadka qaar ay aaminsan yihiin in uusan qaban karin qof lixaad ka naafa ka ah si gaar ah haddii aan u tilmaamno ruux aragala isku day ayaan sameeyay maadaama oo mar waliba qof in loo tagay aan dhigi karin marka sidaas awgeed isku daygii aan sameeyay ayaa ii suurta gashay marka in aan sidaas u jarto ani dad saaxiibadeen aan ugu jaro hadda ayaan soo gaarnay halkii aan u soo qalab qaadanay oo ah deegaanka Daarusalaam gaar ahaan iskuulka indhoolayaasha ee Al-Nuur oo ay ka wax bartaan dadka aragga naafada ka ah qaybna uu ka yahay Cabdiraxmaan Ibraahim Quraysh oo ah qofka sheekadiisa aan idin soo gudbin doono markii hore dacwada caadi kaliya ma jartay adama jaran amal laakiin markii dambe aan dad u jiray jarnaayo arkay caadi waayo okay waa kani waa Cabdiraxmaan Ibraahim Quraysh oo ah shakhsiga qaybta hore ee warbixinta aan idinku sheegay aragliida waa mid rabbaani ah oo uu ku dhashay laakiin kama uusan gacmo laaban qabashada xirfadda timajarista iyo xirfado kale oo uu ku taamayo laakiin ay ku adag tahay dadka qaar ee lixaadkoodu dhameystiran yahay qabashada xirfadaha isku day ayaan sameeyay maadaama oo mar waliba qof in loo tagay aan dhigi karin marka sidaas awgeed isku daygii aan sameeyay ayaa ii suurta gashay marka in aan sidaas u jarto ani dad saaxiibadeen aan ugu jaro Cabdiraxmaan ayaa barbilowgiisa xirfadan ku tijaabiyay tintiisa isagoo adeegsanaya mashiinka loogu talagalay timajarista waana uu ku guuleystay ugu dambeyn taas oo u horseeday gaaridda guul uu ku taamayay waxaana ay keentay in uu ammaan iyo dhiirigelin kala kulmo ehelka barayaashiisa iyo sidoo kale asxaabta hadda inta badan ardayda iskuulka ila dhigato anoo kala oo jira iyo qayb ka tirsan macallimiinta macala marka caadi waa ayaga maadaama dad isla noolna ay yihiin waa aaminsan yihiin inaan u jiri karo waxaan wax kasta dunida isku day waaye warjana intaan in ka badan inaan isku day doono waxa waa caadi waa dib malahan marka qofka aad tinta u jarayso adii xabsi ku soo wajahda in qofkaas oo kale dhibaato u geysato ma inta badan makiinada tinta lagu jaro wax ma sarto jirka hadda ku taagtay hatta wax ma ka qaadays kaliya waxay jaraysaa tin marka taas cabsi ma keenayso caadi waaye qof marka u jara dib malahan Cabdiraxmaan marna dhag jalaq uma siinin dhaliilaha iyo caqabadaha dadka kale uu kala kulmayay kuwaas oo kamid ah ma qaban kartid hawshan dhibaataha u geysan dadka kale maadaama aragga aad laadahay laakiin caqabadahaas waxay u noqdeen sida uu sheegay mid uu ku gaaro hadafkii uu lahaa waa iska badayeen caqabadaha laakiin waxa ugu waaweyn in yani qofka aniga markii aan ahaanteeda aan tinta jarto qorjarka ay u baahan tahay sakiintana marka ayada iska halisteeda iska badan tahay marka waxa dhici karta marka qaarkood inaan qorjaranin marka ilaa hadda wili ma baranin qaabka wili ma tijaabin in aan qorjaran karo laakiin taasna caqabad ay kamid tahay waxa kale oo caqabada in yani makiinada tinta aan ku jarta aysan lahayn cod oo yani ay sheegin halaha jaajarka oo maraayo yani cod saala amal hadda telefonkan wuxuu sheegaa halaha deb oo maraayo 57 oo content itadawo percentage marwaa mobilka marka Ustaad Cabdifataax Maxamed Daahir waa maamulaha guud ee dugsiga indhoolayaasha Al-Nuur ee gacanta ay ku hayso shirkadda isgaarsiinta Hormuud waxa uu sheegayaa waxa ay uga dhigan tahay dugsiga in arday arag la qabto xirfado nolol maalmeedkooda ay ka raadiyaan dhalinyarada Soomaaliyeed lagu gaarsiiyo iskuulka sidoo loo rangareeyo maartay running costigiisa bixiya si boqolkiiba boqola oo sponsor gareeya shirkadda Hormuud marka waxay nooga dhigan tahay haddii su'aasha u soo laabto runtii farxad iyo reereen waxay nooga dhigan tahay wixii aad dhashay oo wax qabsanayo aragtid ibnahaaga marka aragtid iyagoo wax qabsanaya oo shaqaysanaya oo talent leh waxay ku tahay farxad iyo maxaan ku dhahaa waxqabad wanaagsan geesta kale Ustaad Cabdifataax ayaa hoosta ka xariiqay in qof walba waxa uu isku dayo uu qaban karo xitaa haddii uu lixaad ka naafa ka yahay annagu waa ognahay dad maaragtay indhala oo
xamar jooga oo haddana weliba talent leh oo mechanic ah telefishinada hagaajiya muxuu ahaa raadiyaasha suubiya waxyaabo badan oo qofka kale indhaha qaba ku adag ama uuna qaban karin qabta marka waxay tusinaysaa in qofka ilaahay subxaana watacaala markuu abuuro waxyaabo badan oo xigmada oo maaragtay ugu talagalay marka xigmadaas dad yar ayaa fahma waxaan leenahay aragtidaas waa aragti aan sax ahayn waa aragti u baahan in lala dagaalamo oo ummadana wax badan la tuso cabdiqaadir maxamed SBTV muqdisho.